dhaqanaan gaboobay soo jiray guyaal badan urgeesu leenahay aya garabka ii sudan oo hoobay gulla maqadi weeyaan saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat waa qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay qaybihii uu kaga hadlayay dhaqanka ciisaha maxamed xuseen dhegaweyne markaa qaybtii u dambeysana waa tan ama xaalka u weyn baa dhacayo yacni waxa isku imanaya ciis oo dhan uu isku imanaya wuxuu odhanaya maxay ku dhacday arrintaasi arrintaa la sheego arrintaa la way culus tahay arrimaha waaweyn bay ka mid tahay waaye maxamedow waxaa jira qabaa'il badan oo deris leh oo bilmisaal nimanka la samaroon siciido deris bayan shacab dhaqankoodu mis shabax maya horta ciisaha nimanka la yidhaa qabaa'ilka nimanka samaroonka la yidhaa gobolka awdal leh waxaa isdhalaan aad reero badan oo aad u baaxad badan oo aad u baaxad weyn bay isdhalaan oo mayagada buursiga ka mid nimanka samaroonka la yidhaa ka mid ah yay ciisaha isdhalaan niman ciise oo dalkan Soomaaliya ku soo dhaw ama xuduuda Itoobiya daga ama xeebaha daga ay xoog isku guursadaan laakiin oo iyagu oo sidaa isku dhalay haddana dhaqanka nimanka samaroonka la iyaguna dhaqan gaaray leeyihiin ma dhaxgalaan dabeecadoodu xitaa haday ku korto halka uu ku koro hadalka uu ka raacaa luqadda uu ka raacaa lahjada laakiin dhaqanka ciisuhu leeyahay maya male shaqo kuma leh dhaqan gaaray leeyihiin iyagu sodooda haday dhibaato ku timaado halkaan ka soo sheekaynay xaqaani waa mamnuuc waa dil Soomaalida kale midii waa dil weeyo waa la isku dilaaba taasoo waa la isku rogmadaa oo waxa ka dhaca dagaala intaasoo kunoo sano socoto waligood lagu kala bixin oo dhibaato ka dhacda marka waxa weey nimanka samaroonka la yiraahdaa waxay leeyihiin dhaqan u gaara suugaan u gaara waxay lahaayeen iyagu ugaasiya ilaa 100 reerihii ugaasiyadaasi ay ka soo jeedi jireen reer Cabdilcasiis ka Sacuud Arabiya oo kala Soomaaliya oo kale lahaa ayuu lahaa reerkaasi ayuu qoomiyadaasi lahayd oo taariikhdii awdal iyo waxaasi la wada boqortooyo kale hayd saasoo qabaa'ilkii baba loo bixiyay magacii ugaasiyada reer ugaas baa loo bixiyayba magacii abtirsiintii ma aha hada waa ugaas oo lama lahayn reer ugaas baa la yiri ma aha abtirsiintii taariikhdaas ay leeyihiin oo way ka xaraga badnaayeen oo wadada dhaqanka kuma kala halaabaan reer magaal oo wadada waa saylici oo waxa weeyaan wadada aan ku kala lubin dhaqanka iyagu gabadhooda iyo wiilkooga nimankaasi meel kasta hadduu ku dhasho Kismaayo hadduu ku dhasho Baridanaakin hadduu Ardsoobasheeda ku dhasho dhaqanka uu buuleeya malaha dhaqan labaad male ma yeeshaan marka waxa weeyaan halkaas ay ku kala gadisan yihiin marka waxa weeyaan nimankan ciisa la yiraahdo aad baan u jecelahay xagga dhaqankooga iyaga ahaan maaha dhaqankaan aanu jecelahay moogtahay dhaqanka ay leeyihiin iyo dabeecada ay leeyihiin iyo sida ay u dhaqmaan ayaan aad u jecelahay ta kale su'aal waxaan maqli jiray sida ciisaha sooganayso ku duublaha qaatay timaha xaydha ku socda buu yiri nin gabiyay waa isaga waa iyagu mar kale wax la yiraahdaa waxaan maqli jiray hooyada iyo markay nagu xanaaqaan hadaan kuusha ciisaha iskaga kaajarin kuusha bal ka sheekay kuushani waxa weey ninku kolkuu nin dhalinyaro oo yahay aan wali guursanin kuul yaro waxa jira naagu ay kulli xidhaan badana qayb yaro kamid ah oo laag yaro xabad yaro kaliya ah ayuu qaaday oo la taxayaayo waxa laga dhigayaa nooc baa laga dhigayo gabdhaha taha xariga yar marka lagu taxo ee dunta yar lagu taxo inta qoortun bay leegtahay intaas ay ku xidhaan raga xidhanaya waxaanay ka mid yihiin daldaloolkan dhegahoo kale bay ka mid yihiin oo waa dhaqan marka waxa weey markuu nin diro buu iska jaraamiya maya waa taas waa iska baxday uune taa waxa la yiraahdaa ma taqaana su'aashaas way halawday waxa la yiraahdaa ninka markay lala dirirayay leeyahay war naga bayd waxaas inagu soo marnaa wareede waan isku xanaaqnay wareede faraxu naga daana alla waalid inagu waan cay xunahay ba moogta oo diimahan gaadhna
oo gobolladeena qaarkood wax diinta iyo kuwa nacdal bixinaya kuwa xaynkaas hayo de waxaan gaari la istaaro de sariisi daayo kala noqona iyagu waxa ma yaqaanaan ninka waxay ku yiraahdaan naqaan markay la dareeyaan wariya waxa dhiigii habartii dhiig ku darin aniga ilama hadli kareega tag bay ku yiraahdaan mar hadaaran nin dilin way dhiigii habartii markay dhashay ninkan dhiig ku darin aniga ilama hadleega tag bay yiraahdaan waxay oo dhiig habartii aan dhiig ku darin iga leexay yiraahdaan iga leexay waxa dhiigii habartii dhiig ku darinow wadada iga baxbay yiraahdaan marka waa taasay ku shari waa iska dhaqaruno waa dhulka waxyaabahan waa gudnatiga iyo daldaloolkan iyo sarmadan iyo waa waxa uu iyo timahan xaydha la marinayo waa dhaqanka un bay ka mid tahay ku shani iyo baalkan duubka yaralkan lagu xidhan yahay iyo waxaasi marka ninku wuxuu sitaa baalka golxadka dheer oo bira yar kolkuu socdo qalalow ka yidhaahdaan shanqaraan waa bira maartay lacagii hore ummadii hore ee dhaxda ka daldalooli jiray oo suun lagu taxo inaba qay aynu shaqadho iyo bahal siiri la yiraayo isna biraha oo hadii la afu fadhiyo yiraahda waa watan waa ku jiraan waa bahalka isku qayliyaan bahalkaasi aroog baa la yiraahdo ay leeyihiin marka dagaaladu dhacaan baab yiraahdo turumba sida abgaalka arooga turumbadana way leeyihiin waxa kale oo leeyihiin kolka inta ma xidheen suunkan golxadka ku waxaysan bahalkan naagu ay xidhaan kuusha oo cabaad leeyda yay naagu ku taxaan naag baa u sameynaysa waa suunka hadda ku yaala golxadka kolku dhaxda ku xidha golxadka waa la daawadaaba quruxdiisa wad argagaxasaaba habeen haduu galana waxa dhacday ma taqaana waxaasi kuusha horta waa dhaqanka uu moogta marka uu sida uu xidho biraha yar shanqaray wax raga moogta bahalkaana cabaadka yar bay ku taxayaan oo la daawadaa ninkaas uu ciyaaraayo marka aroosyada Soomaaliyeed la isku yimaado iyo walaalaha bahal la yiraahdo ciyaaraha rimaadado marka xitaa gobolkan awdal uu la leeyahay ya ciyaarano la daawado hadaad aragto inuu gaariba ku jiro laga yaabo saa inuu eegay waliga ma arag dabeelaha qaar ma yaqaanaan oo ma yarag saawba markaas sabada ma sayliida maaha sayliiga waxa uu nimanka la yiraahdo samaroonku baale cid kala male lama iyagoo la degan oo waqtiyadaaba ay de waqtiga sayliiga wada deg jireen ma dadkan imika soo wada degayeen waqtiyadan ay sayliic ahay dhulka lama wada degay waa marka nimankan khatartee wax laayaan tahay ninkan uu dhintay lala shirkan lagu soo qaaday ay dhulka ka ugaarsan jireen dadku way kala beelayeen oo kala soconays ma dhaxgalay imika de dadku waa iska magaalada moogta yalla soo dhaxgalay markaas xisaabtan sayliigu lama wadaago sayliigu waa gaar weeyano reer ba iskale reerka samaroon la yiraahdo sayliic ila asalkeega alaya kulli xaal kolku inta xidho uu baarka ku ciyaarayo waa la daawo hawlwalada ciyaarayo waa loo soo kala baday waxa la yiraahdo ninkeena hebel ninkaas waa talo waa beeshe waa ciise waa aynka hablooguna way yar wada ilka qorayin moogta marka waxa weeyaan de gabdhoogana kolkay kala guursanayaan Soomaaliyeed illa alaan kan Soomaaliyeed gabdhihii 30 halaad laga bixinay waa sidii uu yaga sidii 30 barigood inay yar u naagay in intay raacdo de waxaan magaalada islaaqlaqaya ma ina xagga dhaqankoogan ka sheekaynaya inay yar intuu iska kaxaysto biduuni adduunyo uu iskaga qabay ku dhaldhasho oo la dhawaad ku ina hebel guursado inay waxna ma haystaan malaynayo la yiraahdo inagu de inaga intaan ka haysana dhulka ku soo meherin iyagu xaqooga mamnuuc weey sidii wax xoolaha looga tiriyaa sidii barigi naago waa qaali because naagtani markay ilanta noqotay ilaa maalinta la guursanay intuu dhaxaysa wax rag leeyahay isma yaqaanaan way caafimaad qabtaa qolada caafimaad qabto waa qaalide ilaa waa la eegay intan oo dhanbe waana naaga fiican yihiin waana naaga fiican yihiin oo de wax weeyaan naagtooda inta ninka naag fiican ka hela wali ali reerkiisaasi reeraha la mid noqon maayo uu ka dhisnaanaya ninkaasi ma soo liicaya ma soo noqdana waynaga fiican xaqa aad baa naaga fiican naago waxa weeyaan waa reer jira weeyaan halka marka waxa weey ay kulli xaal kolka de arrimaha nimankaas gobolkan ay city magaalooyinkiisa maxaad nooga sheegi kartaa magaalooyinkiisa gobolkan city layda horta meesha Djibouti iyo Ethiopia horta ay ku kala noqdaan tuulada yar ku kala noqdaan xuduudda ku taala dawan la layda tareenka istaaga waanu intaan Djibouti tareen ka raacay
ayaan ilaa diri dhaba ilaa arsoobaan ku tagay marka tareenku markuu Jabuuti ka soo baxo meel Ali Sabiix leeyahay agmaro ayuu dawan laha joogsadaa waa tuulo weyn moogta xaqaasina waa xabashidii xaqana waa ciisiyo waa Jabuuti halkaas sharciyada dadka lagu eega dukumentiga lagu eega markuu halka ka tago dhowr tuulo oo cawlan oo aad dadku u maaratay waa giriyaado kale oo dul daciif ah oo saxaro oo kale ah yuu sii maraa kolka hadaba tareenku dee laguma baran karo magaalooyinka laguma baran karo isagu xadiido meelan magaalo baan buu marayaa haduu doono dhul buu buurka hoostusa bartanka lagu dhiftay moogta oo la dalooliyay dhul buu wahdi weyno geelu daaqayo oo maqaaxyalaho tuulo yari tahayo ayaa kaabad mayad la dul mariyay oo ilaa waa laba xadiidu dul maraa isagu xadiidka yar buu dul maraya moogta waa la dul mariyo waa xadiid la sameeyo la isku xidhay laba buurood buu iskaga talaabaya beel weyn oo maqaaxyana yihiin baa hata hoosta degan waa wahdi weyn oo dhuur laho bahal maro la yiraahdo dhulka xoog ka baxdo waa dhul dixiyo oo geel ku nool yahay loodu ku noosho wax walba ku nool yahay oo arigu ku nool yahay oo magaalooyin fara badan baa jiro magaalada ay shacab maraa oo wuxuu maraa Shiniilo maraa halkaas uu dir laba ka qabtaa marka xagga galbeedka ka xigta banan waa weyn oo baadhi iyo layda baadhi yar iyo baadho weyn iyo layda yaa jiro xagga anfarta oo magaalooyinka sanadka kuwan isku laynayaan ku dhow ayaa jira moogta dhulka ciisa iyo anfar mooyaane cid kale oo bini'aadan ma degto badana Soomaali magaca layda hadaad aragto wax waryaa yira waa ciise nin kale oo weheli gurguruhu halkay waa ka shaqeeyay ma dhawa iyagu korka ku dhowdahay diri dhaba waa magaalo weyn waa laba tareenkuna uu dul maraa meel doox baa u dhaxeeya moogta laba hawaas bay taxageena soo xigta waxa degan militariga Itoobiya baabuurta waaweyn miisaankeeguna uu ku ribayo baabuurta lagu miisaama marka dawladda degan wadadii Eritrea takasana way ka weecata asab tagasi yaa halka ka weecata ma garanaysaa anu iyada halkan uma ka arkay laakiin geel dhaqay Soomaali baa laho waa ciise waxa badana waa ciisiya gurguru halkaas ka bilaama halkaas ka bilaama marka tashishana waxa la yiraahdaa waa isla magaalada nuuno waa Soomaalida degta iyo xogaa yar oo anfaro cawaana iyo dega oo hawaaso waa qaybta Soomaalidu aad degto aniga tareen baa ila yar joogsaday Soomaali badan baa ku soo ururto joogto markaas la yiri Soomaalida ay waan in salaan soo daga hadaad mustacjiltiin baa waxaas nagu yiraahday wada dadka jecel xogaa anfaro qaaqaawana wala joogto oo cawaana oo suuqyada wax ka iibsanayso la wada hadlayna oo dad calaamad la sidata nawaan arkayo cawaana de waa dad cawaana moogta laakiin dadkaas waxaad moodaa Soomaalidu way riixaysaa nimankaas waa iska Soomaaliyeed waa iska Soomaaliyeed laakiin wadanka Soomaali baa leh halkaas uu deegaa baalkaas kolku taga dhow tuulo yar ma iyaga lahay waynu ka qaad leed ciis wuxuu ku aasan yahay ceer gaabo halkan ku aasan halkan ku aasan waxa fiican nimankaas waxa leeyahay nimankaas dadka ma maaga afartu ku durqumi mayso marka waxa way sidaynu u wadnay meelay aadaan bay imika halkan ciisa xagan la isku leynayo halkee laga durqiyay dhulkan iyaga deganaan jira lagu leeyahay marka Soomaalidu inay waxa lagu leeyahay banaanka la dhigay marka waxa weeyaan wadankan Jabuuti la dhaana magaaladan weyn caasimadda Jabuuti la baxday taas waa meel waa caasimadda wadanka ee magacii wadankana qaadatay laakiin dhulka intiisa kale magaaladan loo soo marayo xuduudda tareenku soo maraya leeyahay Ali Sabiix orda Ciisaale waxa jira kolku Ali Sabiix yar soo jiro ayay laameedu kala waxta mid ba xaga ciidu ka dhacday u leexata xaga Eritrea oo kale waxay tagtaa magaalo weyno Disteria oo layda dakhil baa layda Soomaalidu degta iyo anfarta badan halka marka laga bilaabo dhulka wadanka Jabuuti la dhaw war iyaga dhulka u daay iyaga qof Soomaali ma gali karo waa mamnuuc tajooro waan tagaanu ubuqna waan tagay waxa arkaysaa buuro waaweyn oo ceeriyaan ku fadhiya sida ceerigaabo kale oo ceeriyaanka uu fadhiyo barwaaqo oo dhirta madowga iyo caleenta iyo burkaad yaabtay iyo barwaaqada oo riyuhu malaayiin daaqayaan hadda waa malaayiin loo baad arkaysaa
geel yar yar oo qoorta sida ay leeyihiin anfartu oo geela umada weegay oo yar yar oo fool xun geeloogu ma fiicna saasay leeyihiin moogta waa dhul anfareed wadanka hadaba Jabuuti lagu yiraahdo weynidiisu waa anfar waa dhulka anfarta ciisa dhul male Soomaalidu kala wax deegaana kuma lehe ciisa dhul Jabuuti kuma le waa magaalada Jabuuti leeyahay kaliya oo iyadana dee anfar badigeeda dhinac bay leedahay kolka Jabuuti ka soo baxdana ee soo marta tuure yar oo nagaad la yiraahdo magaalada cilfka taalo ciidamada lagu soo tabaro kuwan Soomaalida baa lagu soo tabaray oo xirmo military waa soo dhaafay Soomaaliya dameer joog leeyahay yaa dimanasa maxaa ku xiga wala yacado kula dad la yacado joogtana halkan aqalkana waa Jabuuti sarta dheerna waa tidee seeshankii Soomaalida way wata muuqata waxa u dhaxeeya iyaro inta ina ka yar yaa u dhaxaysa marka dhul kuma haysato ciisa dhulka halkaasi wadankan Jabuuti leeyahay isagu baa iska magacaabane male dhulka anfar baale anfar baa degan oo la badankiisa marka waxaan leenahay anfartuna waa dad muslimiin ah dadkaasi haystaayeen dadkan anfarta leeyahay Soomaaliya horta dadkan anfarta leeyahay badda cas bay degan yihiin moogta oo bahar al-ahmar baa Arabigana leeyahay badana waa badda casayda Carbeed quraanka sida uu yaqaanaan ilaahay yaa buku keenaya mid kala jirta Arabiga ku hadlaan Arabi iyo anfar tajoori iyo ilaa ka Eritrea ka gaarsi af Arabi bay kaga hadlaan oo anfaroon Arabi garanayni ma jiro doonya badanna way leeyahay oo badda ka shaqeeyaan oo Carabtay deeg galaan oo iska dhaqan Carbeed waa dhaqan Carbeed oo Yemen bay calaaqa leeyihiin oo markay dankeli baa loo yaqaan danaakila la yiraahdo oo dawaakiina Cabdullah Xasan laha anfar baaba laga helaa qaar la daawada maxuuha maxayba qaar la daawade anfartaaba laga helaa qaar la daawade allahayow ciisa dumar xuma miyahayd waa kii arrin caynkaas marinay marka danaakila la yiraahdaa danaakiladaaba laga helaa qaar la daawade allahayow dumar xuma walba caynka ciisu wax caynkaas gabayadiina Cabdullah Xasan ku jirtay marka nimankaasi niman iyaga loo gali karo maaha waa niman dhaqan adag oo dhaqan gaar ah Soomaalidana way neceb yihiin hayo de Soomaalida kala maaha ciisay neceb waana is dhalaan Soomaalida kale ciisay ma isma dhalaan Jabuuti waxa ciidamadu kala guursadaan maahin oo anfartiiba gabdha Soomaaliyeed guursatay midna wuxuu guursaday gabadh anfara oo anagaba nin reer Jabuuti oo Saciid Barkhadle oo manager ahaa oo kullu wasiir ahaa de gabadh buu guursaday ciiso oo anfaraho gabadh anfaro wuxuu guursaday waliba de diktoorad baydo ilbaxo de heer saro laakiin hooyadeed baa isaaq ahayd marka anfartan sabadan lama guursaday iyaga gabdhaha guursada Soomaalida laakiin waa dad muslina oo imka dagaalada halka ka dhacay hadaan uu eegi lahaa in dadka xuduud loo sameeyo oo wada degaan oo xoolaha mabaashiga leeyna ay wada daaqaan nabadna lagu maalo ya u wanaagsanayd Soomaali baa oo siga reeran yahay hayo la dadka maartay anay dhibtan badan iyo dilkan badan ee uu yaraan lahaa ya qaxan badan iyo gaajadan badan iyo waxani ila dhulan nabadi oo lin gaaja taale oo dhibaato taala dadku waxay u baahan yihiin hadaba in la kala joojo dad wax garada laga helay adduunyada meeshan kale ka shanaadna de waa tan oo wali de gurmadkeyga badeeniyo wali maba kala gaadhin laakiin dadkaasi waxay u baahan yihiin in la dhexdhexaadiyo Soomaalidu inta u gurmato wixii khaladana cidii la saaro wixii kala de dhul baan lahaa in leeyma haduu dhiiguun socdo waa mushkilad way intaas ku soo marka intaana waan ku soo gabagabaynaa takale labaadna waxaan soo qori doonaa buu kale oo iyaduna beela kala ka sheekaynaya yaan intaan soo qoro oo imika aniga horta saaka igu soo boodubay horta ahayd oo intaas intii yara dhaqankeeda Ciisa uma ka soo qaata dhul badan baan maray ma dibaynu buug baan soo qoraya buuganaan qaadaya intaan halkan la imaado yaan buugan ka hadlaya saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat waa qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay qaybihii uu kaga hadlayay dhaqanka Ciisaha Maxamed Xuseen Dhegaweyne dhaqanaan gaboobay soo jiray guyaal badan urgeesu leenahay aya garabka ii sudan oo hoobay gulla maqadi weeyaan Oh